أضحى الإسلام لنا دين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. kelmadeenna koobani waxay la xidhiidhaa inaynu wax ka nidhaahno mowqifka ama halka uu iska taagay islaamku iyo muslimiintu in loo xafladeeyo sanadka cusub ee gaalada ama miilaadiga la yidhaahdo ee january ka bilaabma. xafladeyntaasi culimada islaamku waxa ay ku tegeen inaanay bannaanayn, wax bannaan maaha oo sharci ahaan xalaal maaha. daliiladan soo socda daraaddood shantan arrimood ayaa ay cuskadeen culimadu. midka u horeeyaa waxa weeye qowl llahi tacaala. ilaahay baa wuxuu ka waramayaa mu'miniintu ilaahay ammaanay. markuu ammaanaya mu'miniinta waxau uhi waladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama. dhaqankoodu waxa weeye dadka alla yaqaanka ah ee ilaahay uu ammaanay marka ay zuurka soo maraan, waxa dembiga ah iyo waxa bilaa macnaha ah way iska dhaafaan. waxaa dembigaa ma xaadiraan. waxay ku fasirayaan culimada mufasiriintu sida mujaahid iyo aimo kaleba, waxay leeyihiin waa ciidaha gaalada. kuwa aanay xaadirayna la sheegay waa ciidaha gaalada, ma xaadiraana way iska dhaafaan buu ilahay subxana goobjooguma noqdaan. ibnu siriinna sidoo kale waxa uu leeyahay huwa shacaaniin waa ciid annasaara, waxa ay shidayaan iyo dabaaldega ay samaynayaan. daliilka labaad waxa weeye anas ibnu malik ayaa wuxuu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi madiina iyadoo aanu leenahay, macnaha waa markii uu hijroodu maka ka tegay sanadii koobaad, wuxuu tegay madiina. marka wuxuu tegay iyadoonu laba xafladood leenahay oo sanadkii 2 jeer baanu dabaaldegi jirnayo, midi waxa uu ahaa kan la yidhaha nayruuska, midina mid kaleo mehrajaan la odhan jiray buu ahaa. wuu su-aalo wuxuu i maxay ahaayeen labadan maalmood ee dabaaldegaysa? waxay idhahdeen waa laba ciidood oo aanu leenahay oo waktigii jaahiliyadii ayaanu samayn jirno, waa sii wadnaa. wuxuu iskaga taga, ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan oo labada ciidood ee ciidulfitr iyo ciiduladxa, oo laba faral oo lasoo dhameeyey baa lagu faraxsan yahay. marna waxaa lasoo dhameeyey faralkii bishii ramadaan, marna faradkii bishii dilxije ee xajkii ayaa lasoo dhameeya. labadaa shay arkaanu islaamkii kamid ah ayaa lasoo dhameeya oo lagu faraxsan yahay, oy u dabaaldegayaan dadka muslimiinta. marka maadaama labadaa ilaahay idinku bedela iskaga taga buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam. marka nahyiga iyo diidmadaa uu nebigu saaray in la qaato weeye oo markaa aan la weydaaranin. xadiidkaasina waa sugan yahay. arrinta saddexaad waxa weeye waa alijmaac. culimada islaamku waxay isku waafaqeen, ijmaacuna waxa uu ka mid yahay daliilada. shay haddii culimada muslimiintu isku waafaqaan waa daliilada la cuskadaa buu ka mid yahay. waxay isku waafaqeen inaan dabaaldegaasi xalaal ahayn oo aanu bannaanayn. sidaa daraaddeed ayaa waxaa jiray dad yuhuud ahaa oo nasaaro ahaa oo la noolaan jiray dowladdii islaamka, dadkii muslimiintaana ku dhex noolaa. marka way iska samayn jireen ciidahooda, laakiin waxaan loo ogolaan jirin inay kor u qaadaan ama ay muujiyaan ama ay dadka dhexdooda ku dabaaldegaan. bal cumar bin khadaab radia allahu canhu markuu madaxweynaha muslimiinta ahaa, wuxuu shuruudaha uu la gelayo dadka aan muslimiinta ahayna muslimka dhex degan ee islaamku ilaalinaya ee sharciga islaamkuna uu xukumaya gaalada ahaa, shuruuduhu la galay waxaa ka mid ahaa inaydan kor u qaadin ciidihiina, oo aydan dadka muslimiinta ku abaabulin, oo aydan la soo dhexgelin. shuruudaha u dhigan jiray ayay taasina ka mid ahay. arrinta afraad waxa weeye alictibaar waxa la yidhaha ku xisaabtan waxa la yidhaha baa jiro oo ah ciiduhu waxa ay ka mid yihiin min jumlati sharaa'ic. had iyo jeer sharciga iyo manhajka ummada ay leedahay ayay soo galaan ciiduhuna, oo dadkaasi waa wax uu weyneynayo oo uu ku faraxsanyay. sidaa horeba aynu usoo sheegnay,
dee waxaynu la faraxsannahay waa arkaanu islaamkii aynu soo dhammaynin. sidaa daraaddeed ciiddu waxa ay ka turjumaysaa diimaha dadkoo diin bay ku daba leedahay. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay iska arkaanun arrin iska reer magaalnimo ah oo ilbaxnimo ay ku yaro jirto oo maalmaha la iska ciyaaro oo mustaqbal la higsado oo waxyaabahaasunbay u arkaan, laakiin waa arrin diin ku daba leh. markay diin tahayna dee diinta xaqa ah innaga hayno oo waa diinta islaamka. dadka muslimiinta, dadka caalamka ku noolna innagay marti inooga yihiin inaynu gaadhsiino. markaa waxay sheegaysaa haddii ciidaha la sugo in diintoodii la sugo raalli laga yahay ayay sheegaysaa. taasina waa arrin qalad ah. marka ilaahayna wuxu uhi subxaanahu watacaala likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan. ummad walba sharciya waxaan u samaynay minhaaj iyo waddo ay raacaan. marka taasina waa arinta saddexaad weeye ee tusinaysa inaanay banaanayn. arrinta afraad weeye baan leeyahay. arrinta shanaadna waxa weeye taariikhdu waxay ka turjumtaa huwiyadda ummadda. ummaddaasi ciday tahay bay ka turjumtaa. marka taariikhdana waxay ka turjumaysaa ummadahaan islaamka ahayn. taariikhda islaamkuna waxay ka turjumaysaa ummadda islaamka ah iyo inay tahay maaragtay jiritaankooda waxyaaba asaaska u ah oo ummadaha waxyaabaha shaksiyadooda sheega waxaa ka mid a taariikhdooda, luqadooda iyo diintiio kasii horeysa. inahaasoo dhan waxay ka mid yihiin huwiyadda ummaddaasi yay tahay marka laga warramayo. sidaa daraaddeed ayaa cumar binu khadaab allaha ka raali noqda markuu ummadda islaamka isagii asxaabtii waktigaa joogay ay taariikhda u sameynayeen. dee taariikhda lama qaadanin gaalada wax jiray ahayd. taariikhda miilaadigu wax jiray ahayd. marka lama qaadanine si ummadda islaamku ay u noqoto ummad iyadu tusaale ah oo aan daba socod ahayn taariikhda hijriga ah ee markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine yimi kasoo bilaabmaysa. taariikhdaasaa la qaato, asxaabtu ay isku waafaqanaya muslimiinta oo dhan. waxaa loo arkaya haddii tan la qaato inay tahay ku raacid iyagii lagu raacay manhajkoodii iyo nidaamkoodii. marka shantaa arrimood daraaddood midna intaba waxa ay muujinayaan inaanay habboonayn oo aanay sax ahayn, ay qalad tahay. u dabaaldega sanadkaa loo dabaaldegaya da-yarta iyo siiba dadka debadaha iyo habeenada aada la isula dhacayo koobabka keegaga la cunayo ee aada loo farxayo. waxaad ku faraxdaa wixii xaqa baad ku faraxdaa. marka tanina waxa weeye runtii taa ummadaha kale ay leeyihiin. nebiguna calayhi salaatu wasalaam hablo yaryaroo ciyaarayay maruu arkay wuxuu ku lahaa cumar bin khadaab iska daa, kani waa ciiddii islaamka, haadaa ciiduna ahla alislaam. tani waa abubakar iyo cumar labaduba markaas waxa uu ku lahaa waa ciiddii islaamka ah, daatan markaa ha farxaane buu lahaa. marka taas inahaasaynu baraarujin lahayn. dadkuna dee kol hadduu qofkuna qof muslima yahay, islaamku ma aha oo keliya dee inuu ku abtirsadee, waxaa habboon inuu dee dhaqan noqdo oo dhaqankii qofka inuu ka muuqdaaba aada u muhiima, si aanu qofkii dee laba qof u noqonin. qof ficil aan islaam ahaynna samaynaya, afkiina islaam ka sheeganaya o ashahaadanaya si aanu u noqonin. marka arrimuhuna yaryaraysi ma lahoo shaygan markay dadka waaweyne sameeyaan da-yartaa kusoo dayanaya hadhowto, hadhowna kuwa ka dambeeya kusoo dayanaya. sidaasaa markaa diintiiba lagaga tegaya. marka taasaynu isku baraarujin lahayn. aada iyo aadna waa mahadsantihiin. dadkana dhammaantood walaalaha muslimiinta in ilahay waxaan ka baryayaa inuu uhiiliyo nasrigiisa iyo gargaarkiisa uu siiyo iyo guul iyo gobonnimo dad diintooda ku dhaqma oo ilaahay subxaanahu watacaala oo camalka saalixa ka aqbalana inuu ilahay ka dhigo. wahada ma aquluhu waastagfiru اllah. wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu.